سنة سأشبه هاي ترحلي ملي حاس أم حريدي الله. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimiga badanayo waa mar kale iyo saaxiibkiina Muhammad Ibn Ali Muhammad Arki. Haddii aad iga daawanaysaa bartaani YouTube aynu ku leenahay ama Facebook page-keena waxaan ku leeyahay ku soo dhawo barnaamijka xiisaha badnaa ee Six Questions. Sidaad u jeedaanba maanta barnaamijka waxaa marti ku ah Dr. Xaliye ku soo dhawo barnaamijka. Bismillah, aadaan ugu dhawahay Muhammad Umar Ali Sir Arki barnaamijka la magac baxay Six Questions oo maanta aad u jeedaan inaan ku ahay marti aad ugu dhawahay waana ku faraxsanahay barnaamijkaas in lagu soo dhaweeyo. waa tahay aad u mahadsan tahay ustaad sida aad ugu soo dhawaateen waan kaga mahadcelinaynaa iyo qaabka wacan aad waqtigaaga nagu soo hortayba. Su'aasha ugu horeysa haddii aan u daaday waxa ay tahay ugu horeyn waa kuma Dr. Xaliye. waa su'aal aad u qiimo badan. waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan waa kuma Dr. Xaliye. haddaba muxuu yahay magaciisa dhammaystiran Dr. Xaliye? magaciisa dhammaystiran wuxuu yahay Maxamed Aadan Xasan oo ku magac dheer Dr. Xaliye yare. waa tahay aad u mahadsan tahay ustaad. waxaan rajaynayaa in dadyo fara badan ay ku xiran janaalka ay ka bogteen magacaaga oo saddexaan in badanna ay badigooyeen sidaas lamid ah. haddii aan usoo gudubna barnaamijkeeni su-aashiisii labaad waxay tahay halkee ayuu ku dhashay goormeesa ayuu dhashay Dr. Xaliye? marka laga hadlo Dr. Xaliye dhalashadiisa iyo goobta uu ku dhashay iyo waqtigii uu dhashay waa waqti aan dheerayn. waa ninka u yeesan da'da yar oo jeedin kama muuqdo wajigiisii waqti sidaa u dheer. waa waqti iska dhow. wuxuu ka mid yahay dhalinyarada da'da yar. wuxuu dhashay sanad marka laga hadlo waa sanadkii 2002 wuxuuna ku dhashay gobolka Shabeellada Hoose loo yaqaan Lower Shabeelle Region. waa tahay aad mahadsan tahay aad baad ugu mahadsantahay sida aan adnaga faaratan mashaada. waa tahay su-aasha saddexaad haddii aan usoo gudno barnaamijkeena wuxuu yahay heerkay koowaad ee waxbarasho halkee ayaad ku soo qaadatay? markaan ka hadlo heerkayga koowaad ee waxbarashada dhanka dugsiga iyo iskuulka dugsiga hoose iyo dhexe waxaan ku soo qaatay Lower Shabeelle halka ay ku dhammaystirantay heerkayga dhan gabi ahaanba waxbarashada dhanka dugsiga iyo iskuulka Muqdisho aan ku dhamaystay. heerkayga koowaad waxaan ku dhamaystay Muqdisho. waa tahay su-aasha labaad haddaan usii gudbo waa maxay xirfadaada shaqo? waana la soconaa inaad tahay dhakhtar qaabilsan dhanka iyo caafimaadka intaba sidaas darteed waa maxay xirfadahaaga shaqo aad leedahay? marka laga hadlo horta xirfadahayda waxaan leeyahay ilaa dhowr xirfad ay ka mid yihiin khaasatan kuwa hadda aan ku shaqaysto khaasatan macalinimo balas dhakhtar magaca u jeedin Dr. Xaliye ku takhasusay khaasatan xirfadda uu gooni leeyahay waa xirfadda caafimaadka. waa sax masha Allah. waxaan rajaynayaa dadyo fara badan ee shaqada ka daawanaya inaad ku caawiso inay dib u helaan caafimaadkooda ilaahayna uu kugu gargalay una kugu saamaxay. waa tahay haddaan usii gudubnaa barnaamijka xasaasigiisa iyo qaybihiisa dhex ay maraynaa waxay isla soo gaarnaa halkaana su-aashiisii shanaad waana xirfadaada shaqo khibrad ilaa muddo intee ah ayaad u leedahay xirfadana shaqo ee adeer aad ku guda jirta? waa tahay haddaan ka hadlo khibraddan u leeyahay xirfadeeda shaqo ilaa iyo muddo 7 sano. 7 sano aad shaqadan kusoo jirtay? si fiican. waa tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo guntii barnaamijkeena waana su-aashii ugu dambeysay aan ugu soo talagalo maanta inaan ku weydiiyo waana su-aal iska kaftan ah. su-aashu waxay tahay Dr. Xaliye ma leeyahay xaas ama xiriir Allah? waa su'aal aad la yaab badan. marka su'aasha laga hadlo wayna adag tahay in badan jawaab sax in la bixiyo. waayo waxaan leeyahay dadyoga daba idaawanaya haddii su'aashaas la weydiin lahaa ma bixin lahayn dad qaar jawaabta saxan laakiin waxaan bixin doonaa jawaabta saxan. waa tahay haddaba jawaabta su'aashaas waxay noqon doontaa Dr. Xaliye waa nin weyn oo leh waxaan leeyahay jacayl xiriir jecel aad leedahay. waa tahay waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenana halkaa iyo nagu egyahay insha Allah
adigana aad baan kaaga mahadcelinaynaa sida wacan oo waqtiga aad nagu soo hortay insha allah kulanti dambe oo xiso leh dadiyada meesha iga daawanayna waxaan leenahay haddii aad ka hesheen muuqaalka fadlan like saara waad ku mahadsantihiin daawashadiida wacan inta barnaamijka aan kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaan allah